Asalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Maanta muuqaalkeen waxaan uga hadalnaa AI tools. Waxaad ka helaysaa website aad ka helayso dhammaan AI toolsyada sida ay u kala sareeyaan, sidoo kale sida ay u kala version sareeyaan ayaad ku arki kartaa website-kaas. Website-kaas ayaan idin wadaagi doonaa. Haddii aad channelka ku cusub tahay, channelka subscribe noo saar. Aad u mahadsan tahay. Kanaalkan waxaan uga hadalnaa waxyaabaha ku saabsan ayaan ka hadalnaa. Haddii aad xiisaynayso oo kuma channelka subscribe saaro, aad u mahadsan tahay. Website-ka waa idin soo dhigi doonaa, description-ka ayaa idin soo dhigi doonaa. Haddana waan galaynaa. Halkii wajahdiisa si aan usoo furto waa sideen. Waxaa ku jira 2600 in ka badan ay ku jiraan AI tools ah. Waa ka in ka badan ay ku jiraan. Inta kale waxa ay leeyihiin 400 iyo in ka badan categories ayuu leeyahay. Marka wajigiisa hore waa sidaan, future-kiisa waa sidaan, today, new, most saved, waxa saveysteen sidaas waaye. Marka ayadii waaye, ayadii ayaa ku soo saari doona sida aad ugu habaysan lahayd. Halkan ayaa kugu tusi doona wixii writing ah, halkan ayaa kugu sheegi doona DeepSeek ugu weynaa uu ku sheegay, ChatGPT waa ku sheegay. Marka si aad ku xulan lahayd waan ku sheegi doonaa. Marka image generation-ka waa halkan ayaa ka arki kartaa image generation-ka. Mida kale image analysis-kan waa halkan website-da loo isticmaalo, iyagana AI-da loo isticmaalo, music audio AI-da loo isticmaalo, iyagana waa ka hadda inta badan waxaa la garanayaa Adobe Podcast ayaa la garanayaa inta badan. Meeshaan haddii aan sii fiirino voice generation waxa waaye CapCut ayaa ku soo horeynaya. CapCut ay ku sheegi doonaan website-da inta badan ay ku sheegi doonaan. Artist create design waxyaabo badan ay ku sheegi doonaan. Marka sidaas waaye website-kan saddexda dhibac. Haddii aan nagno sida aad ku xilan lahayd, haddii aan ku sheego waxa waaye social lasting ay taaban doontaa. Markii aad sidaan u sii taabato social lasting-kiisa waa halkan ayaa kugu sheegi doonaa toolsyada ugu badan ee la isticmaalo. Toolsyada ugu badan ee la isticmaalo waxa waaye beacons ayaa la isticmaalayaa, video base ayaa la isticmaalayaa. Wuxuu halkan ku leeyahay CapCut waa la isticmaalayaa, AI ah, V8 Quid waa la isticmaalayaa, Freepik AI waa la isticmaalayaa, Michael waa la isticmaalayaa, ChatGPT waa la isticmaalayaa, Adobe waa la isticmaalayaa, OpenAI waa la isticmaalayaa. Intaan ayaa kugu jira marka si aad u isticmaali lahayd. Haddana sida kale ayaan ku sheegi doonaa summit average-keeda. Summit-ka haddii aan sii taabano, average-keedu waa ka 800 milyan dollars ayuu leeyahay. Intii bishii waxaa la soo booqday halkan ay ka arki kartaa. Waxa waaye waa isdiiwaan gelinaysaa. Marka ratingkiisa marka ay toolskiisa waan iska dhaafaynaa. Categorieskeeda ayaan soo eegi doonaa. Marka categorieskeeda ayaan sii eegi doonaa. Categories badan ayay ku jiraan. Waxa waaye categorieska ku jiraan. Marka halkii aad rabto writing-ka halkan ayaa sii taaban doontaa. Writing markaan sida u sii taabato website-da ugu fiican ee writing-ka halkan ayaa kugu soo bandhigaya. Hadda waxa soo bandhigay AI blogger generation. Halkan calaamada buluug weeraha midda saaran waaye 730 ayaa la isticmaalay. Marka midkan kale waa ku soo xigaa creator writing waa ku soo xigaa, writing waa ku soo xigaa, grammar technique midkaana waa ku soo xigaa. Marka midkaana isagana waa ku soo xigaa. Sidaas waaye writing-giisa. Haddii aad u baahan tahay social media, haddii aad u baahan tahay, haddii aan taabano waxa waaye AI-gada u badan la isticmaalo waxa waaye midkaan waaye AI art generation. Waxaa la isticmaalay 1000 ka badan ayaa la isticmaalay toolsyadiisa. 1000 ka badan ayaa la isticmaalay. Waa ka image-ka waa halkan ay kugu sheegi doonaa view website-ka dhihi doontaa, kadib gudaha ayaan sii gali doontaa. Marka sidaas waaye kadib gudaha ayay sii gali doontaa. Sidaas ayay ku xulan kartaa. Marka haddii aad u baahan tahay inaad muusigyada mise audio-haaga edit garaysato, sidaad ugu edit garaysan lahayd website-da ugu fiican ee la edit gareeyo waa ka halka tirada ugu sareysa ayaad eegaysaa. Marka tirooyinka ugu sareeya ayaad eegaysaa. Midkaan music
generator midkaan waaye waxaa isticmaalay 300 iyo in ka badan ayaa la isticmaalay tools in 25 waaye waa ka mopedka waa ka halkaan ayuu ku leeyahay halkaan ay kugu sheegi doonaa sidaas waa eeda ugu isticmaali badan tahay saan ku eegi doontaa haddii aan taawano education translation eeda ugu badan education translation waa coachingka midkaan ah midka ugu horeysa all answer midkaan ah business managerkiisana waa halkaan wax badan ayaa kuu sheegi doonaa business manager eeda waa ka halkaan loo isticmaalaya qaraalka halkaan ayaa ku hakiyay muuqaalkan intaan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.